السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal kusoo dhawaada warbixintan aynu ka bixin doono shirkaddan Funded Next. shirkaddan Funded Next muuqaal hore ayaynu ka duubnay dhowr bilood ka hor, laakiin kani waa update-kii u dambeeyey. waxaan rabaa inaan akoonada ugu wanaagsan iyo shuruucda aynu si fiican isla fiirino oo si fiican u daawataan. waxaan rajeynayaa ilaa dhammaadka inaad daawan doontid, markaa kusoo dhawaada insha allah. shirkaddan waxaan la shaqaysanaynay bilihii u dambeeyey sanadkan bartankiisa bishii June ayaan akoon ka furanay, ilaa iyo hadda waan la shaqaysanaa. lacagaha si fiican bay bixiyaan. oo shirkadda aan oran karnay shirkadaha challenge-ga bixiya oo shirkadaha ugu horeeya ka mid tahay. marka saddex akoon bay bixisaa shirkaddani. halkan models ay ku qoran tahay ayaad taabanaysaa, kadibna saddex akoon baa kusoo baxay. saddex akoon laba ayuun baa inaga khuseeya, mid isaga uma baahnin oo muuqaal marka doomayno shuruucdiisuna may qancin markiiba. oo kan express-ka la yiraahdo isaga frame ka qaadaynaa, kan stellar-ka la yiraahdo ku horeynaynaa. marka click haddaan siino wuxuu keenayaa meel halkan akoonkan stellar-ka la yiraahdo laba akoon buu isagu si qaybsamaa. stellar challenge oo ka popular-ka ah dadka oo dhan inay qaataan. marka isaga laba u qaybsama. halkan baad ka dooran doontaa hal step baad rabtaa mise laba step. hal step haddaan taabano dabcan fee-ga ayaa isbedelaya oo lacagta yara kordhaysa. marka waxaynu inagu dooranaynaa laba step. haddaynu akoon fundina rabno dee shirkadda Fund Graphics ayaynu ka qaadan doonaa, laakiin shirkadda waxaan soo doonaa akoonada challenge-ga. halkan waa swap iyo swap free. marka kan islaamiga aad qaadanaysaa swap free-ga ayaad click siinaysaa. mid walba click baad siinaysaa. adigu step 1 haddaad rabtid click baad siinaysaa, saasuu step 1 kugu noqonaya. step 2 haddaad rabtid laba step haddaad rabtidna saasuu laba step kugu noqonaya. marka swap-ka inagu qaadanay haddaan dad muslimiin nahay oo akoonadaynu aanay riba aanay qaadi karin. waxaan la soo saaray akoon saysyada uu hayo 6,000, 15,000, 25,000, 50,000, 100,000 iyo 200,000. wuxuu bixiyaa shanta akoon, lixda akoon buu bixiyaa akoon says. mid walba hoostiisa ay shuruudihiisa iyo faahfaahinta soo dhan ku qoran yihiin. shirkaddan akoonkeedan stellar-ku wuxuu ku wanaagsan yahay 15% ayaad qaadan doontaa markaad face challenge-gaad ka gudubtid. 15% lacagtii share-kaaga ahayd ayaad qaadan doontaa. lacagtii fee-gaaga ahayd 15% ka mid ah ayaad qaadan doontaa. tusaale ahaan imka akoonkan 6,000 117,000 baad qaadan doontaa markaad face challenge-gaad ka gudubtid. akoonkan 200,000 waxaad qaadan doontaa lacag 4,000 ah, 100 baa ka dhiman. lacag 3,900 4,000 ayaad qaadan doontaa markaad labada face ka gudubtid akoonkan. hoos haddaynu usoo degno yacni waana la tijaabiyey bilihii u dambeeyey oo dhan baan tijaabinay, way kuu soo raacinayaan. labada face marka gudubtid akoon fundida lagu dhiibo. akoonka fundiga maalinta saa u furtid haddaad $1 ku dirtid ayaad dalban kartaa. markaa fee-ganna waa lagu soo raacinaya $1 haddaad ku dirtid. wax ma laha taargeda. marka saasaa lagaga faa'iidaystaa. dhalinyarada badankoodu saasay kusoo celiyaan marka koowaad lacagtoodii iyo faa'iido la socotaba. 15% kan waxa weeye waa lacagtii 8% ahayd iyo 5% ahayd labada challenge oo la isu geeyay lacagtii aad ku gudubtay. tusaale ahaan akoonkan oo kale haddaan kasoo qaadno 10,000 inaad kaga wada gudubtay 15% ka mid ah 2,500 ka mid ah ayaa lagu soo diri doonaa. marka 5% kan 15% kan waxa weeye lacagii challenge-ga ee barkii hore la iska dhaafi jiray. 10% baad gaadhay phase 1 phase 2 labada waxna kuma lahayn. imika mid walba 15% baad ku leedahay. waagii hore lacagaha laguma xisaabin jirin. wax lagu xisaabin jiray lacagaha funded-ka ah. akoonka funded-ka marka uu siiyo lacag riyaada ka samaysay in baa lagu xisaabin jiray, laakiin imika wax la-aan lagu diri maayo. labada challenge lacagii aad ka shaqaysay 15% lagaa siinaya. 15% ka mid walba intan buu qiimihiisu noqonaya. kan waa 4,000, kan waa 2,000, kan waa 1,000, kan waa 500, kan waa 300, kanna waa iska 112. haddii aynu hoos u degno akoon walba faahfaahinta hoos bay ku qoran tahay. profit target 1 akoonada shirkadaha kale waxa weeye 10% inay jirto, laakiin tan waa 8%. profit target 1 ka 8% waa ku daraysaa. profit target 2 gana 5% waa ku daraysaa. akoonada waa isku wada mid dadkan qaadanaysa iyo dadkan qaadanaysa. daily loss-ka waa 5. maximum loss-ka waa 10. laba aad u wanaagsan. akoon type-ka balance base weeyaan, yacni akoonkaaga inta uu yahay ayuunbaa lagugu xisaabinaya intana. يعني وحي كسر درت هذا له
time limit ma laha oo waqti lagu xadidayo lagu oranay Facebook kaga gudub ama Facebook kaga gudub labada midna ma laha waqti lagu xadidayo minimum training days يعني maanta haddaad ka gudubtid waa in 4 casho dambe sugtid gashan maalmood weeye minimum training days maanta haddaad ka gudubtid ama 2 casho ka gudubtid waa in 5 maalmood sugtid wax weyn maaha commissionka waa $3 per lot $3 per lot weeye waa commission magaranaysa very low ah waliba commissionka waxa qaataan wax weeye waa akoonka baalka la macaamilaan in baa inta saaranay ka waxa aad yar weeye profit split keedu wuxuu gaarayaa ilaa iyo 95% akoonka marka challenge-ga dhaafisay marka koobaad waa 15% lacagii challenge-ga soo dhaaftay aad qaadatay waa halka faa'iido ku joogtid akoonkaaga funding-ka marka dambe wixii aad ku dartidba 95% yaad leedahay dhammaan akoonada waa isku wada mid leverage-ku waa 1 ratio 100 waa leverage aad u wanaagsan waxyaabaha lagu ogol yahay wax kamid ah trading newska ku train gareyn kartaa waxyaabaha dhalinyarada badankooda news traders-ka lacagaha waalan uga sameeyeen shirkadda Funding Next oo dhawaanahan aan arkaynay weekendiga waad haysan kartaa fasaxyada weekendiga waad haysan kartaa AI-na waad isticmaali kartaa AI-gana imka soo badanaya AI-ga ugu wanaagsan insha Allah soo gudbin doona faa'iidooyinka ka sameyn doona insha Allah aan jawaabooyin badan aan ku sameyn doona copy trade waa isticmaali kartaa kan reset discount wayaan oo akoonka haduu ka gubto 10% qiimaha saad leedahay ilaahay kuma keeno refundable fee-giyo la soo celinayana waa kan bal tusaale ahaan imika ninka fee-giisu ahaa 1990 oo fee-giisi loo soo celiyay oo loogu soo daray lacag 4,000 ah oo ay noqotay lacag 5,000 iyo dheeraad 5,000 iyo dheeraad ninka marka koowaad qaadanaya salaam wax ka baxay 4,000 oo kala loo soo raaciyay soo aan waliba akoonkiisa funding aan ku shaqeyn ayaa 4,000 helaya marka koowaad labada Facebook ka gudbo kadibna wixii dambe akoonkiisa real-ka ah wixii ku daro 95 uu yeelan doona marka si loo iibsadana halkan hoosaad ka eegi doontaan mid walba halkan ba ka qoray waa koon dhamaantood hadaan iska xidhno waa kuwan kaad rabtid ayaad click siinaysaa start challenge salahan akoonka 200 hadii ay rabno oo kale waxaad sameynaysaa halkan start challenge ayaad click siin doontaa kadibna wax ku soo baxaya daaqada sidaan oo eeg ayaad ka dooranaysaa horta dhammaan akoonkaaga oo halkan faahfaahinta lagu soo qoray marka MT4 iyo MT5 ka dooranaysid MT4 hadaan doorto swap free mar hore ayaan soo doortay iyadoo way doorantaa swap hadduu ku yahayna waa kan isagana halkan ba ka dooran kartaa laakiin maadaama dad muslimaan ahay inagu swap free ayaan dooran doonaa hoos hadaynu soo degno halkan haddaad click siisid lacagtaada waxaad ku daraysaa qiimo dhimista saas qiimaynta la ku daraysaa marka isagoo iska dhaafaysa halkan lacagta ku kordhaysa hoos hadaynu soo degno profit split-ka beginning-ka koowaad waxay heli doontaa 15% lacagta challenge-ga ahayd aan ku lahaa waxay ahayd 4,000 akoonka 200,000 iyo refundable fee-gaagi lagu soo celinayo oo isaguna ahaa 1,100 marka waxay noqonaysaa 5,100 lacagtaad marka koowaad baad qaadan doontaa profit split-ka qaadan doontid waxa weeye 95% profit split akoonkaaga wuxuu ku gaari karaa scaling marka lagu sameynayo 4 milyan salahan qofka bistaha dul dhigta aan dhinacna uga leexan markasta oo uu faa'iido kala baxo waxaad awood u yeelanaysaa in 40% akoonkaaga lagu koriyo salahan akoon 100,000 ayaad gaartay ayaad faa'iido kala baxday aad qiimo ka sameeyay lacag ka sameeyay waxa lagu darayaa $40 marka 140,000 buu noqonaya intaas uu noqonaya marka ilaa 4 milyan ayuu ku gaaraya marka salo ugu wado halkan hadaynu soo daadegno akoonkii baan wali wadnay inaan iibsano halkan next ay ku qoran tahay ayaad click siinaysaa si akoonkaad u iibsatid marka daaqad sana uu ku soo saaraya daaqadan baad buuxinaysaa daaqadan faahfaahintaada oo dhan baa ku qoran marka waxaad rabtaa inaad ku qortid magacaaga first name-ka halkan oo last name magacaaga email-kaaga iyo wadanka aad joogtid Soomaaliya ka dooran kartaa password-ka ayaad qoranaysaa
haddana passwordka ayaad mar labaad ku celinaysaa hoos oo soo degaysaa stepskan wax aad u muhiim labadaasaad click siinaysaa labada meelood oo ah inaad privacy iyo policy terms and conditions ka akhriday kadibna labadaba click ayaad siinaysaa labada marka click siisid ayaad next soo oran doontaa kadibna waxaa intaa dambe account-kaagii mastercard ama visa card ayaad ku bixin doontaa ama crypto ayaad lacagtaada ku diri doontaa halkaa markay marayso haddii aanad adigu haysan lacag labada card midna annaga nala soo xiriiri doontaa lacagtaada cash baad ku dhiibi doontaa EVC ama SAD ama sahal ama waxyaabaha kala isticmaashay kadibna annaguna crypto ahaan baan shirkadda aan ugu diri doonaa account address-ka ay ku siiso in crypto ahaan ugu diri doonaa kaasaad ku yeelan doontaa account-kaagii waad ku qaadan doontaa account-kaasi waa kaas waa account-kan stellarka loo yaqaano maxaynu nidhi 3 account bay bixisaa inagu laba bay naga khuseeya labada naga khuseeya ayaynu qaadan doonaa waa stellarka iyo evaluation ka kale ee loo yaqaano express inagu iska dhaafin marka kan evaluation-ka ayaynu haddana click siinayna anigu account-ka stellarka la yiraahdo ku taliya mar walba kan evaluation-ka la yiraahdo waa kan hoos baad soo degi doontaa faafayntu halkan ayay ku qoran doontaa marka iyadana waa kan ma swap-ka dooranaysaa mise swap free-gan dooran haye hoos soo deg account-nada bixiso waa la mid account-nadii hore haye profit share-ka intii unba la qaadanaya profit target-ka ayaa kan ah 10 kii hore maxaa 8 profit target koobaad 8% waa kanna waa 10 haddaynu sii wadno halkan waa iskaga mid maximum daily loss-kana waa iskaga mid maximum loss-ka guud overall loss-kana waa isku mid waa 10% account-ka magaranaysa waa iskaga mid balance base-kiisa halkan ayay haddana ku kala duwan yihiin stellarku muxuu ahaa unlimited buu ahaa kan laakiin phase 1 waxaa laga rabaa in 4 weeks aad ku gudbtid oo bil ah phase 2-gana 2 bilood oo 60 maalmood ah 30 maalmood iyo 60 maalmood hoos u soo deg maximum trading days-ka iskaga mid weeyaan waa 5ka commission-ka waa iskaga mid profit split-kana waa iskaga mid leverage-ka waa iskaga mid waxyaabahan lagu ogol yahay afarta ah iyagana waa iskaga mid discount-ka reset-ka marka account-ka gubta haddii aad ku ceshansid 10% discount aad leedahay waa caadi xagga qiimahana dabcan waa iskaga mid marka kaliya wax kala duwan yihiin halkan may kala duwan yihiin time limit-ka iyo profit target 1 intaas ku kala duwan yihiin kana waa iskaga mid oo aad garanaysaa lacagtu inta ay tahay ayaa lagu darayaa tusaale ahaan imka account-kaas kii hore account-kan muxuu ahaa 4000 ayaa lagu soo celinayay lacagtii share-ta aad ku lahayd kan laakiin waa 4500 maxaa kan kordhiyay labada account waxa weeye waa isku mid xagga qiimaha 200 weeye 4500 kii horena wuxuu ahaa 3900 ama 4000 waxa kala duwan waxa weeye profit target 1ka kan waxa laga rabaa 10% kii horena 8% buu ahaa tusaale ahaan kan waxa laga rabaa 2000 ma laga rabaa kii horena wuxuu ahaa 8% wuxuu noqonayaa 16000 markaas kala duwanaadeen markaas challenge-ga lacagtiisu ay ku badan tahay challenge labada phase ka gudbay lacagtiisu ay badan tahay markaas lacagta lagu soo celinay 15% kaas ku koray kan ku tusaale ahaan kun buu ahaa laakiin kan 2000 iyo intaas laga dhigay marka adigu markasta adigoo fiirinaya waxa muhiim ku ah in labadan account mid qaadan doonta ama evaluation baad qaadan doontaa ama stellar anagu stellar-kan aad u garaacnaa aad u jecelahay maadaama si degdeg aan ku baasayno time-na aan oo qabanaynin 8% kaliya aan naga rabo phase-ka koobaad wixii kale oo dhan oo waxaan ka samar karno intaas aan noo muhiim haddii aynu hoos degno dabcan si uun baa loo iibsanayaa start challenge in baad click siin doontaa wuxuu keenayaa daaqada saan u eg markaa daaqada saan u eg waad garanaysaa waad buuxinaysaa platform-ka dooranaysid annagoo MT4 aad u garaacnaa oon isticmaalnaa swap free ama swap marka swap-ka haddaad dooratid yani riba kula socota swap free marka dooratidna lacagtaada waa lacag bila riba ah account real ah account islaamic ah baan ka wadaa hoos soo degaysaa
waa kan serverkan baad isticmaali doontaa mt4 koonkaaga 200,000 waa free weeyaan priceka qiimaha waa intaas total price waliba marka qiimo dhimista isticmaashay 10% qiimo dhimisa ayaad yeelan doontaa inoo kusoo diri doonaa insha Allah koorka oo aan soo weydiin doontaa halkan 15% ee profit split ka aad ka qaadan doontaa challenge phase ka aad ka qaadan doontaa hoos soo deg waxaa oo dhan waxyaabaha iska mid ka ahaayeen oo 4 milyan baa lagu gaarsiinayaa akoonkaaga halkaa markay marayso ayuunbaad next sii odhan doontaa isku si unbaa loo iibsanaya waa dariiqa aynu hore u marnay ayuunbaad kana u maraysaa click baad sii siin doontaa markaad click siisid waxaa kusoo baxaysa daaqada saan u eg iyadana waad buuxbuuxin doontaa oo informationkaaga first name magacaaga koobaad magacaaga labaad emailkaaga wadankaaga passwordkaaga markaa ku celisay labada meeloodna tick baad siinaysaa kadibna next baad oranaysaa next markaad tiraahdo wuxuu kuu saarayaa halkii aad ka iibsanaysay oo ahayd card bangigaaga inaad buuxbuuxisid card bangigaaga geli visa card ama mastercard labada kaad ku iibsanaysay ama qof kale aad saaxiib tihiin visa cardkiisa iyo mastercardkiisa waad ku iibsan kartaa lacagta unbaad ku shubaysaa wax mushkilada ma laha kaliya adigu waxaa lagaaga baahan yahay inaad magacyadaadana iska saxdid iyo wadankaaga gmailkaagaadana xiftid intaas un weeye marka akoonka kale ay shirkadu bixiso express baa la yihahdaa express qofkii rabaa wuu soo fiirin karaa yacni anigu kamaan helin waa kan kaliya haddii aad siisid halkan buu soo saarayaa marka waxyaaba iska malaa yacni buu u badan yahay marka anagu farahan ka qaadnay aad arki kartaan meelahan oo dhan in waxyaabaha qaar iska qoran yihiin 25% ee targetkaad gaaraysaa waxyaaba iska magaranaysaa ayay noqonaysaa marka waa akoon waqti weyn qaadanaya dad badan newska xataa kuma dargelin kartid weekendiga ma haysan kartid waa akoon lacag weyn horta laga sameeyo marka dadka professionalka ee kor wadayba insha Allah u fiirsan doona inaga inama khusayso waxaan rajaynayaa muuqaalkan aad si fiican soo daawan doontid telegramkeenana descriptionka ayaad kaga soo biiraysaa wixii magaranaysa koorka qiimo dhimista iyo wixii dadka akoonada baasiyay dhammaantood dhankaas ugu soo gudbin doonaa haddii aad rabtid in akoon lagu baasiyana waad nala soo xiriiri doontaa waxaa laga yaabaa in tiimkayaga ay qaar ka bannaan yihiin oo saas ay kugu shaqayn karaan mararka qaarna lama helo qof kugu shaqeeya oo ayuunba shaqaysan doonaa laakiin marka koobaad intaad akoonka furan waa inaad weydiisid anagana soo weydiisid whatsappkayga ama telegramkayga aad naga soo weydiisid in akoon lagu baasin karo lagu qaban karo marka telegramkeena kusoo biir halkaas update ka heli doontaa insha Allah akoonadana sida looga furo dadka waa kaa caawin doonaa telegramkeena kusoo biir whatsappkeenana nagala soo xiriir akoonkaas saasan kaaga caawin doonaa wixii aad su'aal qabtay oo dhan halkaas naga soo weydiin doontaa commentigana waad nagula wadaagi doontaa insha Allah kusoo biir channelkeena waxaa laga yaabaa in maalin kasta aan muuqaal soo gelino muuqaalada shirkadaha profilka ka hadla ayaan dhammaantood aan hogaa kusoo upload garaynaa markaa subscribe saar insha Allah. Assalamu alaikum.